maxkamadda gobolka Banaadir ayaa dhawaan xabsiga ka sii deysay haweeneydan oo loo yaqaano Sacdiye Bajaaj isla markaana kiiskeeda uu ahaa mid kamid ah kuwa ugu xasaasisan ee dhawaanahan galka faylkooda uu yaalay lamaha cadaaladda dalka. Sacdiye ayaa la xiray dabayaaqadii bishii tagtay ee February 2026 isla sanadkan dharaarahaasi oo si weyn ay u eedeynaysay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. mar kalena xurriyadeeda ay dib u heshay isla Maaj bartamaheedii, laakiin maxaa dhacay wixii ka dambeeyay iyadoona isla bishaasi Maaj laga qabtay mar kale fagaraha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. inta badan haweeneydan waxay kamid ahayd dadka sida weyn u dhaleeceeya xukunka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ama nidaamka hadda dalka ka arrimaya madaxweynaha. waxayna sheegtay in Xasan Sheekh Maxamuud awlaadiisu inta badan ay ku raaxaystaan wadamada caalamka, in xaq u leedahay oo noolaashaha sida gabadha Xasan Sheekh Maxamuud ee jihaan ay u noolaato, waana weerar dhibsada birmaduhu. xabsiga ayaa mar kale lagu tuuray. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa fadhiyo kala duwan la geeyay iyadoona xabsiga dhexe tan iyo bishii Maaj 2026 ilaa iyo bishan Agosto oo maanta oo taariikhdu ay tahay 11keeda la sii daayay, waana xabsi u dhigma ku dhawaad 4 bilood oo markaasi lagu haya haweeney caruur haysata ama caanoleeya. maxkamadda gobolka Banaadir ayaa kiiska Sacdiye Bajaaj marar kala duwan u fadhiisatay, waxaana la xasuustaa in dabayaaqadii bishii Julaay ay ku xukuntay markaasi Sacdiye Bajaaj iyo tiim kale oo inta badan warbaahinta ka weerari jiray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xabsi u dhigma 6 sanadood oo xabsi ciidan ah. taasi wixii ka dambeeyay maxkamadda racfaanka ayaa loo gudbiyay kiiska Sacdiye, iyadoo maanta ugu dambeyntii maxkamadda racfaanku ay ayiday xukunkii ay horey u riday maxkamadda gobolka Banaadir. ayaa maanta Sacdiye Bajaaj mar kale lagu arkay gudaha maxkamadda gobolka Banaadir, iyadoo halkaasi xabsigii tirada badnaa ay ka khafiifisay isla markaana dib loo sii daayay. xurriyadda intii ay haysatay gabadhani waxaa la xasuustaa inay kamid ahayd dadka sida weyn u dhaleecaya nidaamka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. weeragof u muuqda oo ka dhana madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ay hore u geysatay, taasise kama saarayso inay xurriyad ku noolaato, sida maadaama dalkan uu yahay dal dimuqraadi ah in dadka weeraha afkooda ka soo baxaya loo bartilmaameedsado waa xukun ugub ah oo xukuumadaha hadda jira ee federaalku ay sii kordhinayeen sanadihii la soo dhaafay. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana kiiska gabadhan marnaba faraha la soo gelin, iyadoona la rumaysan yahay in sii deynta Sacdiye Bajaaj ay sidoo kale ay ku timid cadaadis xoogan oo dhinaca bulshada ka imaanaya, maadaama maalmihii la soo dhaafay si weyn bulshada Soomaaliyeed uga qayliyeen xirnaanta gabadhan oo la sheegay inay tahay mid cadaalad darro ku salaysan. Sacdiye Bajaaj inta badan waxay la shaqaysataa nimanka mucaaradka ah dowladda Soomaaliya, iyo mucaaradkii ay ka tirsaneed midkoodna cadaalad kama helin, waxaana mucaaradku isaga hareen kiiskeeda kadib markii ay gacanta u gashay dowladda Federaalka Soomaaliya. dhalinyaradana inta badan waxaa lagu gubaabinayaa inaysan ku milmin ama afayeen u noqon ragga mucaaradka, taasi oo naftooda dhibaato ku ah sida ay qabaan dad badan. in qofku uu noqdo microphone lagu hadlo kadibna la ilaabo marka dhawaqa afkiisu uu isagu u eedobo ama u dakanoobana waa mid kamid ah dhibaatooyinka ay xabsigaasi tirada badan ku mudatay haweeneydan maanta dib xurriyadeeda u heshay. ma laga yaabaa in Sacdiye ay fagaaraheedii hore dib ugu laabato? kolba waqtiga iyo waayaha ayaa wacali iyo warsheeg inoogu filan muuqaalkan fogay oo gaarsiin saaxiibadaada.